gaashaan la dhaxa anoo ah maalintii Hargeysa beega la dhacay oo shaarica dadka la waray 3 maalmood aan joogay dalka waa ka fakaday muqdishaan imid aeroport passport tuugaha goostay aeroportka muqdishaan si tuugaha Saudi Arabia cumra ugu bax su'aasha inaad bartaan jeclaan leen waa ka balan ararta in la yareeyo waxaan marka uga jeedaa dadka Soomaaliyeed caalamka dad la xukumo oo ka fiican oo ka dawlad jecel oo ka sharaf badan ma jiro laakiin runta markaan isu sheegno madaxda Soomaaliyeed baa xun waxba qarin mayno sababtu maxay tahay madax ra'iisul wasaare 3 dagaalaad hadda ku jirtaan 3 dagaalaad gasheen dagaalkii shabaab la isku ogaa kii Jubbaland gasheen kii shacabkaad gasheen kii mucaaradkaad gasheen 4 dagaal baad ku jirtaan 4 dagaal see u xalinaysaan ra'iisul wasaare see loo xalinaa 4 dagaal see loo xalinaya way mideeda kale waxaan ku soo gaabinayaa dhulkii shacabku iska lahaa oo dukumiintiga lahaa oo nashqada lahaa oo rajabuudka lahaa oo suburlooga lahaa oo Cumar Tugumba lahaa oo heshiiska goofle lahaa ayaa la qaatay waxaana qaatay dawladdiina rag ka tirsan oo ganacsato iyo wasiirro ah qaatay waa maasanta dhulka dadka uga soo celiya dadweynaha siiya dhul arrimaha de kale aad sheegtay aad leedahay 4 dagaal iyo waxyaabahaasi waa su'aasha kuma jirin laakiin waana mid u baahan inaan mid walba si address gareeyo hadda inaan aad ugu sii mashquulo ma rabo annaga inaan Jubbaland taadana way fiicnaan lahayd inaan si gaar uga hadlo dadkanagana shacabkanagana dagaalku lama jirno haddii ay dagaalku yahay inay dadku ay dawladdu dhul maarayso oo ay dan guud ka shaqeyso sideedaba marka dan guud ka shaqeynayso dan guud wax la yiraahdo danta gaarka ah ee dadka qaarkood waa isku dhacaysa shaki kuma jiro marka danta guud iyo danta gaarkii mar walba waa isu daran yihiin waxaana ay tahay in la raaco danta guud ayada xoog badan ayadaana marka dambe dadkoo dhan u wada noqonaysa shaki kuma jira marka la yiraahdo meel yar baa la wanaajinaya haddaan dhahno dhulkan aan dhirayno hadda meeshaan dad ka mida Soomaaliyeed dantood baan jiiraynaa marka inaynu danta guud iyo isu miisaana mar walba danta gaarka waa laga maarmaan